dowladda Soomaaliya ay xirtay waxaan hadda joogaa qaaradda Yurub waxaan si kooban kaga sheekeynayaa xarigii liigu geystay magaalada Muqdisho iyo sidii la ii jildiray intii aan la xirin ka hor waxa ay soo gaarayay taleefanno hanjabaado ah oo iga imaanayay dad aan markaas magac aqaanay iyo dad aan magac aqoon dadkaas waxay ugu oranayeen inta badan jooji waxa aad wadid jooji wararka aad sheegaysid dadka waxaas oranayay qaarkood waxay ugu haysteen waxaad la xiriirtaa oo xog siisaa Daahir Calisow waxa la yaab igu noqotay oo walwal badan igu dhalisay inuu ila soo xiriiro madaxa warfaafinta al-shabaab ninka la yiraahdo Yoonis oo si cad iigu hanjabay haddii aad joojin weyso buu yiri xogta aad siinayso Daahir Calisow ee xiriirka aad la sameynayso ee ku aadan shirkadda Dahabshiil iyo al-shabaab in aan ku diri doono ayuu si cad yiri oo nafteeda aan ku weyn doono waxa sidoo kale igu xigtay mar kale oo aan xasuustaa inuu ila soo xiriiray ninka la yiraahdo Cabdullaahi Nuur Awdiini oo ah madaxa shirkadda Dahabshiil ee koonfurta Soomaaliya wuxuu asna iigu hanjabay oo ii sheegay inay og yihiin in aniga aan ahay wakiil Daahir Calisow iyo waaga cusub u jooga Muqdisho oo la wadaaga ama siiya xogta Dahabshiil maadaama aan ku sugnaa magaalada Muqdisho xilligaas iyo al-shabaab marka runtii arrintaas walwal badan igu dhalisay waxaana ii soo baxday in kiiskayga ay maalgelin ku sameynayeen oo ay lacag ku bixinayeen nimanka la yiraahdo Dahabshiil oo ay ii soo adeegsadeen al-shabaab oo ii hanjabay oo nafteyda damcay in ay dhaafiyaan hanjabaadahaas kadib waxa ii xigtay in la xiro markii la xiray 15 Agost sanadkii 2014 anigoo ku sugnaa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho waxa markii ugu horeysay laga qaaday taleefankayga gacanta oo ay baaris kula dhaqaaqeen sida aan dareemayo iyagoo ka raadinaya in Daahir Calisow uu isoo wacay ama kontakti aan la sameeyay oo xog aan siiyay iyagoo waliba codadkii taleefanada iyo taleefanka intaan ku hadlayay baaris kula dhaqaaqay intaas kadib markii la xiray oo taleefanada laga qaaday oo aan xirnaa hal maalin iyo hal habeenka kale waa la soo baxay xilli dambe waliba ayadoo ah waa la ijir dilay laakiin intaan la ijir dilin ka hor waxa la ii weydiiyay su'aalo kooban oo ay weydiinayeen rag isqarinayo oo aan markaas magacyadooda iyo wajigooda aan garanaynin su'aalaha ay weydiinayeen waxa ugu badnaa su'aalo badan ay ahaayeen su'aalaha ay weydiinayeen waxa ugu badnaa Daahir Calisow ma la xiriirtaa shirkadda Dahabshiil war ma ka sheegtay shirkadda Dahabshiil ma sawirtay oo sawirkeeda muu dirtay Daahir Calisow qaar kamid ah shaqaalaha Dahabshiil ma sawirtay intaas oo dhan oo eedeymaha ay su'aalahaas weydiinayeen waxaan iri wax lug ah aan ku leeyahay ma jirto laakiin markii dambe ay jirdil ugu bilaabeen iyagoo ay dhahaya wax walba waan ognahay wax walba waad samaysay waa inaad runta sheegtaa xilligaasna waxa iga duubayeen aan dareemayay inay cod iga duubayeen laakiin aniga iyo Daahir Calisow xilligaas aan magaalada Muqdisho joogay wax xog ah ama wax xiriir ah oo naga dhaxeeyay ma jirto marka laga reebo saaxiibtinimo gaar ah oo wariyaasha Soomaaliyeed aan ula mid ahaa marka intaas kadib waxa dhacday in si aad lii jirdilo oo waliba liigu jirdilo Dahabshiil ayaad war ka sheegtaa aniguna war ka sheegin Dahabshiil ayaad xog Daahir Calisow siisaa oo ku saabsan aniguna xog siinin waxa intaas ii dheereed oo markii la dhibaateynay aan soo xasuustay wicitaankii ay soo wici jireen ninka la yiraahdo Yoonis oo shabaab ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Nuur Awdiini oo shirkadda Dahabshiil isna madax u ah haddana awal waxa la soo adeegsaday shabaab intaan la xirin kor maantana markii la jir dilay waxa la soo adeegsaday dawladda oo ragii dawladda ka tirsanaa ayaa su'aalaha noocaas ay weydiinayay haddii aan waxaan kaga sheego sida la jir dilay oo la dhibaateeyay habeenkii waa la soo baxay su'aalaha markii la weydiiyay kadib waxa la igay meel barxad ah waxa la yiri ninkan si fiican ha loo jilciyo waxaan u fahmay ninkan si fiican ha loo dilo oo ha loo garaaco waa ay garaaceen kadib waxa ay qabteen indhaha ay iga xireen waxa iga xireen gacmaha xabadka ay kala dhigay waa la igu tumtay waa la ijig dilay madaxa la iga istaagay waxa way dhabarka aad la iga istaagay feeraha iga garaaceen nimanka jirdilay aniga ma aqoonin waan qayliyay kadib wax ila soo hadlo ama wax ay jawaabay malahan waa miir doorsoomay mar labaad ay haddana ijig dileen waxay madaxa ii galiyeen bacdaas oo runtii bac aad u kululahayd oo ay shiileen bacdaas ayaa jirkeyga aad u googoysay
waxa la igu dhibaateynayay oo la igu jirdirayna waxa ay ahayd daahir calasow maxaa ula xiriirtaa daahir calasow maxaa warka dahabshiil ugu sheegtaa dahabshiil ma sawirtay shaqaalaheedina ma sawirtay anigoo intaas wax lagu kulhayn marka barnaamijku waxaan u fahmay in dhaqaalo ay ku bixisay ama shirkadda dahabshiil ay eedaysatay dhinacyada dalka isku haya sida shabaab iyo dawladda habeenka xigta waxa la igu sameeyay intay soo bixiyeen iyo waxay gacmaha ii geliyeen baco iyo lugaha kadib waxa igu shideen dab iyo basbaas iyo waxaan dareemayo oo runtii aad u kulul waxay marna igelinayeen biyo qabow ah waxay marna igelinayeen biyo kuleel ah korkana waxay iga shubayeen sakeel baaldi biyo ah ama sakeel sida u taqaanaan oo biyo kulul marna waxay iga shubayeen sakeel biyo qabow oo runtii jirkaygana waad aragtaan sidoo runtii aad ugu go'ay xanuun badan aan dareemay meeshaas waxaa ka dhacday wax ka dhana xuquuqda bini'aadanka aad iyo aad ayaa lii dhibaateeyey mararka qaar haddaan soo xasuusto habeenkaas runtii waxaan dareemaa caloolxumo aad u weyn waxaan dareemaa runtii walwal badan isma oranayn aniga xilligaas la ijir dilay adduunyada ayaad ku sii nagaa doontaa adduunyada ayaad sii joogi doontaa adduunyada ayaad waqti ku qaadan doontaa laakiin ilaahay qadartiisa waxaa dhacday in nafsadeeda ilaahay ii badbaadiyo haddana aan joogo oo hadda aan meel nabad ah oon ku hadli karo oo qaaradda Yurub aan joogo waxaan ugu dambeyn idin cadeynayaa shakhsiyaadka ku lug lahaa ee isku xireeyay shabaab dawladda iyo nimanka la yiraahdo shirkadda dahabshiil oo runtii aniga kiiskayga runtii ama dhibaatadii iga geystay ka dambeeyeen shakhsiyaadkaas haddaan idin sheego caawa oo aan idin cadeynayo inaad wax badan moogtihiina laga yaabaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee warfaafinta cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow wasiirka hadda ah warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye oo xilligaas ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xasan cali geesay oo aad wada taqaanaan oo agaasimo ka radio dalsan iyo ninka la yiraahdo maxamed ibraahim bagistaan oo isna xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka sheeganayay xilligaas inkastoo xogayaha rasmiga uu yahay Umar Faaruq waxay intaas oo dhan u midoobeen oo ay aniga waliba xasan cali geesay waa la kulmay waxaan la kulmay bagistaan waxay aad u xiiseynayeen oo ila sheekaysanayeen aniga in la dhibaateeyo ay ka shaqeynayeen oo adduunyada la dhaafiyo oo la jirdiro wuxuu xayir maareeye ninka la yiraahdo isku xirayay shirkadda dahabshiil iyo dawladda Pakistan waxaa soo adeegsaday dahabshiil wuxuuna xiriir lahaa shabaab ninka la yiraahdo xasan cali geesay sidoo kale waad ogtihiin wuxuu xiriir leeyahay dad badan oo runtii Muqdisho joogaan laakiin ma hadli karaan wuxuu ka dambeeyay dilkii loo geystay wariye caanageel wakiilkii waaga cusub ee Muqdisho oo lagu dilay Madiina wuxuu sidoo kale ka dambeeyay dilkii Allah naxariistay Cabdisalaan Xiis waa ninka xasan cali geesay la yiraahdo wuxuu ku lug lahaa dilal badan oo wariyaal Soomaaliyeed Muqdisho lagu geystay runtii Pakistan wuxuu isna ku lug leeyahay dilal wariyaal oo Muqdisho lagu geystay iyo kuwa hadda Muqdisho ku sugan oo qorshahooda ku jira inuu qaarijiyo isagoo u shaqeynaya nimanka la yiraahdo al-shabaab gaar ahaan wuxuu si gaar uga shaqeeyaa afayeenka ururka al-shabaab ninka la yiraahdo Sheekh Cali Dare xasan cali geesay ninka la yiraahdana wuxuu la shaqeeyaa ninka la yiraahdo Yuusuf Kabo ku tukaday oo al-shabaab isna ka tirsan xayir maareeye wuxuu la shaqeeyaa Somaliland waa xildhibaan hadda waa wasiirka warfaafinta awlna xildhibaan oo xilligaas wuxuu la shaqeynayay Somaliland iyo shirkadda dahabshiil isagoo dahabshiil iyo dawladda isku xiray wuxuuna sidoo kale la shaqeynayay ragga ugu sareeya al-shabaab waxaana adeer u ah bulshada caawa si fiican ha u barato oo ha u ogaato gudoomiyihii hore ee ururka al-Wahda Sheekh Cali Warsame oo al-shabaab ka tirsan dadka ugu badan oo sidoo kale ka shaqeeyay dhibaateynta loo geystay idaacaddii aan ka shaqeynayay ee radio Shabeelle waxay ahaayeen dad kala duwan oo runtii aad u fara badan waxa ugu muhiimsanaa oo dhibaatadaas lug weyn ku lahaa ninka la yiraahdo cabdiraxmaan yariisow oo runtii beesha caalamka ama international community u diray qoraallo been abuur ah oo ku dacaydinayay ama xuquuqda bini'aadanka ee lagu tuntay iyo xorriyadda hadalka oo lagu xadgudbay ee radio Shabeelle u diray beesha caalamka oo qarinay oo daboolay waxaa sidoo kale ku jiray ninka la yiraahdo Pakistan oo iska dhigay xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka Nosaj isagoo aan ahayn waxaa sidoo kale ku jiray xasan cali geesay waxaa sidoo kale ku jiray maxamed cajiib waxaa sidoo kale ka mid ah ragga dhibaateeyay maxamed aadan koofi ninka la yiraahdo xerow waxaa sidoo kale ku jiray saraakiil nabad sugidda ah waxa aabbo u ahaa intaas ninka la yiraahdo Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe oo taliyaha nabad sugidda ahaa oo runtii xitaa markii la xiray aniga iyo saaxiibadeen noogu hanjabay in la idin soo xiro ma ahayn in la idin toogtay ahayd in la idin dilay ahayd oo naftiin la idin dhaafiyo haddii la idin soo xiro waa baqeer haddana maxkamadda ciidanka la idin saaraya waa la idin xukumayaa 22 sano idinku xukumaya ninka sidaas yiri waa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe oo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya ah cadaaladda Soomaaliya ka jirta
halkay taallaa maxaa ummadda Soomaaliyeed been lagu sheegaya maxaa magaca dawladda international community-ga iyo dadka dibadaha jooga loo leeyahay dawladda Soomaaliyeed wax badan ay qabatay dawladda Soomaaliya waxa ma qaban dawladda Soomaaliya waa fashilantay xasan sheekh maxamuud tan iyo markii wadanku u yimid wax uu ummadda Soomaaliyeed u qabtay malaha inuu dhibaateeyo oo hagadaameeyo oo guryaha ummadda dhaco oo guryaha ummadda boobo qofkii hadlaana uu toogto ama xiro ayuu ka dhigay dadkii oo dhan wuxuu adeegsaday Sambalosh ninka la yiraahdo oo dadka u dhibaateyn jiray Sambalosh xilka waa laga qaaday wuxuu adeegsaday haddana maanta oo dadka u dhibaateynaya Cabdiraxmaan Tuuryare wuxuu sidoo kale adeegsaday Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo runtii abti uu yahay oo dadka ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateynay Soomaaliya wax cadaalad kama jirto Soomaaliya international community-ga waxa u baahannahay oo ka dhadhacsiinayna oo meelo badan aan ka tusaynaa oo cadeyn badan aan u keenayna in ummadda Soomaaliyeed Soomaalida aan tusno dhibaatada ay ku hayaan nimanka magaca dawladda sheeganay waxaan la wadaagayaa xanuunka iyo dhibka soo gaaray dadka aniga ila midka ah oo runtii sidoo kale loo jirdilay haddana qaarkood loo jirdilay aan ogahay ee ku jira xabsiyada dawladda gaar ahaan xabsiga godka Jilocow oo nabad sugidda Soomaaliya ay gacanta ku hayso waxa meeshaas ka jirto wax ka dhan ah xuquuqda bini'aadamka waxa meeshaas ka jirto wax ka dhan ah xuquuqda qofka muslimka uu leeyahay gaar ahaan qofka insaanka ah waxa meeshaas ka jirto tacadikii ugu xumaa adduunyada isma oran kara aniga hadda Soomaaliya gaar ahaan nabad sugidda si dadku u jirdisho oo xabsiyada ay ugu dhibaataysan yihiin Soomaalida meel adduunyada kamida ayaa saas qofka xuquuqdiisa loogu tuntaa waxa meeshaas ka jirto wax aan la koobi karin waxaan adduun weynaha international community-ga beesha caalamka dawladaha Yurub hay'adaha xuquuqul insaanka ee fadhigooda Geneva iyo Brussels dawladda Mareykanka waxaan ugu baaqayaa in aysan taageerin kuwana dilaya oo ku tumanaya xuquuqul insaanka ee dadka xabsiyada ku dhibaateynaya ee ku jirdilaya iyo shirkadda Dahabshiil oo runtii dhaqaale ku bixinaysa dilka dadka Soomaaliyeed dilka shakhsiyaadka sida gaarka ay u bartilmaameedsanayso oo ay u adeegsanayso labada dhinac waa nimanka argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo nimanka dawladda Soomaaliya sheegta ee Muqdisho ku sugan runtii international community waxaan ka codsanayaa oo mar kale aan ka codsanayaa in aysan nimankaas taageerin in Soomaaliya cadaalad darrada ka jirto wax laga qabto in xabsiyada dadka ku jira ee ku dhibaataysan xuquuqda bini'aadamka loo fiiriyo oo dawladda cadaadis lagu saaro in cadaalad darrada Soomaaliya ka jirta oo heerka ugu sarreeyay gaartay oo musuqmaasuq gaartay oo shirkadaha ay lacag ku bixinayaan oo ay leeyihiin qofkaas noo xukuma qofkaas dil toogasho noogu xukuma qofkaas mataqaanaa waa qof anaga danteena ka soo horjeeda qofkaas haddii qofka xornimo saxaafadeed ama xornimo shakhsiyadeed kama jirto Soomaaliya waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in Soomaaliya ay noqotay meesha ugu xun oo halista adduunka ee Soomaalida lagu dhibaatay dadka xuquuqda bini'aadamka lagu tunto oo suxufiyiinta lagu dhibaateeyo iyo shakhsiyaadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo shakhsiyaadka si xor ah ama aragtidooda siyaasadeed ama aragtidooda shakhsiyadeed ka hadla hello ugu dambeyn waxaan mahadcelin gaar u keedinayaa oo aan aad ugu mahadcelinayaa suxufiyadda Shukri Saciid oo ka shaqeysa wargeyska ugu weyn dalka Talyaaniga ee Republic waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa suxufiga madaxa bannaan ee runsheegaha ah ee maanta Soomaali oo dhan ay wada fiirsanayaan ee la yiraahdo Daahir Calasow oo runtii wax badan nala qabtay oo runtii dhibaatadeena sidii loo soo bandhigi lahaa ka shaqeeyay waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa wariyaasha Soomaaliyeed ee dadaalka dheer u galay in aan xabsigaas ka soo baxno oo maanta si xor ah aan u imaano qaaradda Yurub waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Jamaal Cusmaan oo ka shaqeeya Channel 4 madaxa Dalsoor waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Hamza TV-ga Jazeera waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wariyaasha Soomaaliyeed ma wada xusi karo ay raali ahaadaan kuwaan ka tago haddii ay dhacdo wariyaal badan oo runtii saaxiibo aan nahay oo wax badan noo qabtay jira waxaan sidoo kale si gaar ugu mahadcelinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo kuwa saxaafadda madaxa bannaan u dooda oo runtii kiiskeena wax badan ka qoray waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa hay'adda RSF waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa IFK
waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa hay-adda CPJ, waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Human Rights Watch, Amnesty International waxaan uga mahadcelinayaa markii aan ka soo baxay xabsiga oo Muqdisho aan imaaday ay Muqdisho igu yimaadeen. waxa ay wareystay gabadha la yiraahdo Kima Davis oo runtii Muqdisho Soomaaliya qaabilsan xafiiskeeda ku meel gaarkan uu yahay Nairobi ay ka soo duushay Muqdisho ay u timid. wax badan ayaan u sheegay runtii ayadana dadaalka ay sameysay gabadhaas runtii aad ay ugu mahadsan tahay. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Human Rights Watch oo iyana 2 isbuuc ka hor qadka telefoonka ugu soo xiriirtay anigoo ku sugan Brussels, Belgium, xafiiskooda Nairobi. wax badan ay wariyay warbixinadeedkan 2016 igu soo saartay dhibaatadii ay geystay. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ururka suxufiyiinta qaranka Italiya FSNA. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dowladda Italiya, wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan Belgium iyo waaxda socdaalka ee waddankan iyo dowladda dhammaantood iyo shacbiga waddanka Belgium oo runtii magangeliyo fara badan siiyay. aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. xaqiiqada warankeeda hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafiyo adigu agar hawga qaadan wadkii dhibashada hamoodin haweerarin aragtidiisa xorriyadul qolkana hawiiqin. xaqiiqada warankeeda hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafiyo adigu agar hawga qaadan wadkii dhibashada hamoodin haweerarin aragtidiisa xorriyadul qolkana hawiiqin. shacbigu waa wada walaalo walaayo hadday ku siiyeen yariyo weyn ku codeen. shacbigu waa wada walaalo walaayo hadday ku siiyeen yariyo weyn ku codeen. ayaantaadu ka fooshay haddana waxwanaaji weyday hadduu suxufigu warkiisa waseedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin. ayaantaadu ka fooshay haddana waxwanaaji weyday hadduu suxufigu warkiisa waseedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin.